taariikhdu markay ahayd 7 January 2019 galab qoraxdu sii dhacaysay ciidamada ammaanka ee dawladda Soomaaliya ayaa la sheegay in ay soo istaag ku sameeyeen in la soo gabagabeeyo tababar uu qabanayay xisbiga wadajir. Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo markii dambe warbaahinta kula hadlay banaanka hotel laga baajiyay in xafladda lagu soo gabagabeeyo gaar ahaan tababarkaas uu xisbigoodu soo qaban qaabiyay waxa uu sheegay in ka xisbi ahaan ciidamada ammaanka loo adeegsaday in laga fashiliyo sida uu yiri tababarkii ay u qabanayeen dhalinyarada Soomaaliyeed ee la xiriiray fahamka siyaasadda. Maanta oo ay 15 tahay 2018 isla January mar kale ay sheegeen xisbiga wadajir in ciidamada loo adeegsaday oo tababarkii ay soo xiraan loo diiday. Dr. Xasan Sheekh Cali oo kamid ah macallimiintii tababarkan bixinayay ayaa sheegay in ciidamada ammaanka iyo dawladda looga baahan yahay inaan loo adeegsan inay shacabka iyo xisbiyada caburiyaan sida uu yiri. ciidankaas waa ciidanka qaranka waana jecelnahay askariga koofidiisa anaga iskale shaatigiisa anaga iskale surwaalka anaga iskale kabiisa anaga iskale gaariga wata anaga iskale qorogoo wata anaga iskale raadiga wata anaga iskale oo shacbiga Soomaaliyeed waa hanti dadweyne waa ciidan dadweyne waana jecelnahay ciidankeena waana la shaqeynaynaa nabadgelyada kala shaqeynaynaa waa dadka shacbiga la toosinaynaa wixii qarannimada iyo dawladnimada dhibayaan diidaynaa laakiin waxaan ka rabnaa ciidankeenu inuu noqdo ciidan u shaqeeya qaran ee ciidan aan u shaqeyn shakhsi ashkhaastana waxaan u sheegaynaa adinkuna waa tigi doontiin qarannimada Soomaaliyana waa jiri doontaa ciidanka Soomaaliyana waa jiri doonyaa calankan iyo ciidan iyo dadkaanuna waa jirayaan taariikhda baalkii aad ka gelin lahaydeen kaliya hadda haska wasaqayna maanta aad haysatay fursad hadii kale waxa idinku dhici doono ku idinka horeeyay ku dhacay. Kamaal Guutaale oo ah gudoomiyaha xisbiga wadajir waxa uu sheegay in dawladda federaalka Soomaaliya ay caadaysatay sida uu qabo in caburin iyo hanjabaad loo geysto xisbiyada gaar ahaan xisbiga wadajir ee isagu gudoomiyaha uu yahay. qodobka 20aad ee dastuurka xurriyadda kulanka banaanbaxa cabashada iyo codsi wadareedka qof kasta wuxuu xaq u leeyahay inuu abaabulo kana qayb galo kulamo ama banaanbax oo si xasilooni ah cabasho loogu muujinayo iyada oo aan ogolaasho looga baahnayn cidna. marka anaga dastuurkaas ayaan wadanaa qodobka 20aad ayaan ku dhaqmaynaa. qodobka 20aad run ahaantii wasiirka amniga iyo booliisku waxay ka dhigteen runtii xaanshi maxaa la yiraahdaa lagu joojiyo musqusha lagu galay ka dhigteen. waa ka xunnahay run ahaantii anaga qodobkaas aan noo ogolaanaya qodobkaas aan ku dhaqmaynaa. waxaan leenahay dawladda yaan lagu tumanin sharciga kana lagu wada joogaa kan yaan lagu tumanin kan hadii lagu tunto dawladnimada ma jirto. xisbiga wadajir oo goor sii horeysay helay shahaadada cadaynaysa xisbinimada ee guddiga doorashada uu bixiyo ayaa wajahay culays siyaasadeed gaar ahaan cadaadis kaga yimid dhanka dawladda federaalka Soomaaliya. Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo ah hogaamiyaha xisbiga wadajir dhowr jeer oo uu hadlay waxa uu sheegay in dawladdu caqabad ay ku tahay xisbigooda. mas'uuliyiinta xisbiga ayaa banaanka hotelka ku siiyay shahaadooyinka cadaynaya in tababarka ay qaateen dhalinyaradii muddada soo qaadanaya tababarkaasi la diiday in lagu soo gabagabeeyo hotelka iyadoo banaankana lagu siiyay maadaama sida ay yiraahdeen mas'uuliyiinta xisbigu loo diiday in gudaha ay ku soo gabagabeeyaan tababarka. Cali Aadan Muumin Goobjoog, Muqdisho.